Alxamdulillaah, Allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale. Maanta waxaa noo wadaa nimco ka mid ah nimcooyinka Allah subxaana wa tacaala arladan soo dhigay, waana koostada. Maanta waxaan ka hadli doonaa fitamiinada iyo macdanada koostada ku jiro iyo faa'iidooyinka koostada. Daawo videoga bilaabilaayo dhammaad. Mahadsanid. بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالياتي سو دوادا كسو دوادا channel كينا كسو دوادا قلبي فوران. koostada faa'iidooyinka ee leedahay aad ayay u badan yihiin. koostada waxaa loo cunaa sida saladka oo kaleeto, inkastoo dadkeena Soomaaliyeed ee aad koostada aan salaato ahaan u cunin kaliya ay karsadaan, balse ansalaat ahaan ayaa u cuni kartaa oo salad ayaa ka sameysan kartaa. sidaa ujeediin baaquligan aadka u quruxda badan, koosto iyo yaanyo iyo barbarooni iyo basal oo laysku soo jarjaro waaye. maasha Allah, tabaarakallah. sidoo kaleeto koostada cabitaan ayaa ka dhigan kartaa oo waa shiidan kartaa, waxaad u cabi kartaa cabitaan ahaan. ayadane faa'iidooyin aad iyo aad u badan ayay jirka siineysaa. wax walba oo faa'iido leh, ceeriinkiisana faa'iido ayuu leeyahay, biseelkiisana faa'iido ayuu leeyahay. sidoo kaleeto koostada waa la karsadaa sida anagaba aan sameyno. inta ugu badan koostada karinteeda ayaan aad u jecelnaa, waan karsanaa. aad iyo aad ayay u fiican tahay. marka aan gudagalno faa'iidada ay leedahay koostada, marka hore inta aan videoga u gudagelin, hadaa nagu cusub tahay soo dhawow. channelkan waxaa lagu soo gudbiyaa nimcooyinka Allah subxaana wa tacaala arlada noo soo dhigay, faa'iidada laga helayo, sidoo kaleeto isqurxinta dabiiciga ah, dhiirigelinta iyo xasuusinta ku salinta xabiibkeena sallallahu calayhi wasalam. Allahumma salli calaa sayidina Muhammad wacalaa aali Muhammad. haddii aad isleedahay intaba waa xiiseyneysaa amaba wax ka mid ah ayaad barnaamijyadaas xiiseyneysaa, channelka subscribe saaro, gambaleelkana furo sida video walba cusub uu kuugu soo dhaco. mahadsanid. asxaabteyda qaaliga ah, koostada waxay leedahay vitamino iyo macdano ayay leedahay. vitaminka ugu horeeya waa vitamin A amaba A, qof walba siduu u yaqaano. aad iyo aad ayuu jirka ugu fiican yahay. qaleelka jirka ayuu bi'iyaa oo jirkaaga inuu qalalin ayuu ka hortagayaa. sidoo kale wuxuu leeyahay vitamin C, inkastoo oo xoogaa ku yaryahay. sidoo kale wuxuu leeyahay vitamin K. sidoo kaleeto wuxuu leeyahay folic acid, wuxuu leeyahay iron amaba maadada birta. sidoo kaleeto wuxuu leeyahay calcium. subxaanallah, intaas oo faa'iido macdano iyo vitamino ayay koostada leedahay. caafimaad ahaan marka yay u fiican tahay koostada. koostada qof walba oo bini-aadan ah way u fiican tahay, balse dad qaar ayay haddana aada ugu sii fiican tahay, sida dadka qabo dhiigkarka, sidoo kaleeto dadka qabo sokorta. aad iyo aad ayay koostada ugu fiican tahay. sidoo kaleeto dadka aada caloosha u istaagto amaba koostada waxayba u fiican tahay calool istaaga, caloosha ayay jilcisaa. taasina qof walba uu ogyahay sida aan u maleynayo. koostada sidoo kaleeto waxay u fiican tahay dadka kolestaroolka qabo. wax walba oo cagaaran oo cagaarkiisa aad ah, kolestaroolka aaday ugu fiican tahay, oo saliidaas maadadaas cagaaran ayaa jirka ka dhuuqeyso. marka dadka kolestaroolka qabo sidoo kaleeto koostada aad iyo aad ayay idinkugu fiican tahay. ilaahi subxaana wa tacaala qof walbo xanuun walba uu haa ilaahi subxaana wa tacaala ha ka qaado, inta caafimaad haysatana ilaahay ha u siyaadiyo. allaahumma aamiin. sidoo kaleeto waxay u fiican tahay aneemiyada amaba maadada feerada qofka ay ku yaraato. aad iyo aad ayay ugu fiican tahay maadaama ay ku jirto iron. sidoo kale waxay u fiican tahay lafaha maadaama uu ku jiro vitamin K iyo calcium. sidoo kaleeto koostada waa cuntada ugu matalsan dadka rabo in ay miisaanka iska dhimaan. sidoo kaleeto koostada waxay u fiican tahay timaha iyaba wejiga. koostada waxay leedahay maadada birta, sidoo kale waxay leedahay vitamin C. maadada birta ah timaha aad iyo aad ayay ugu fiican tahay. qofka timihiisa baxeenin daadanayo, micnaheeda waxaa waaye jirkiisa waxaa ku yar
feerada amaba ironka. Haddii uu jirkaaga ku yaryahay, wax walba aa marisid, nafaqo walba aa sameysid, waxba kuuma tarayaan, sababtoo ah birta jirkaaga ayaa daciif ah. Marka hore ironkaaga kor usoo qaad, kadib ayaa timahaaga adiga ayaa arki doona adigoo wax marinin ayay kuu baxayaan. Sidoo kaleeto dhanka wejigana aad iyo aad ayuu u dhalaalinayaa, sababtoo ah wuxuu leeyahay vitamin C, inkasta oo vitamin C-ga uu ku yaryahay. Sidoo kaleeto koostada waxay u fiican tahay indhaha ayay waxay ka ilaalisaa qaleelka, maadaama ay leedahay antioxidant iyo sidoo kaleeto vitamin A amaba A iyo vitamino kaleeto iyo macdano intaba indhaha u fiican oo indhaha qaleelka ka ilaalinayo. Sidoo kale waxay ka hortagaysaa indhoolnimada haweenkii amaba cudurka shimbirowga aan u naqaano. Sida ay koostada faa'iidooyin u leedahay, sidoo kaleeto dhibaatana way kuu keeni kartaa, balse inta aan dhibaatada koostada sheegin, waxaan rabaa in aan sheego hooyooyinka uurka leh aamin ayuu u yahay, amaba wax dhibaato koostada uma keenayso. Weliba faa'iidooyin aad u badan ayay siinaysaa, vitaminada iyo macdanada ay u baahneed ayay ka helaysaa. Marka sidaas darteed, haddii aad hooyo uur leh aad tahay, waad cuni kartaa koostada ama waa cabi kartaa, balse videoga dhameyso ciladaha kale ee koostada ay leedahay, sida u ogaatid aad isaga ilaalisid. Koostada uma fiicno dadka kiliyaha ka xanuunsan, sababtoo ah macdanka oo cusbada ayaa aad ugu badan. Qofkana in uu iska badiyo mar walbo ma fiicno. Wax walba oo aad cunaysid si xadidan u cun, xitaa hadday faa'iido walba ay leedahay. Wixii aad iska badisid, meeshii faa'iido ay kaa siin lahaayeen, dhibaato ayay kuu keenayaan. Sidoo kaleeto dadka cabo daawada dadka gacmaha ama xididaha ama wadnaha istaagayo ama cudurkaas qabo, dadkaaseetine koostada uma fiicno. Sidoo kaleeto dadka jirkooda ama maqaarkooda alerjiga leh oo cuncunayo, ayagana waxaa jirto maado oo ku jirto oo markaaseeti qofka aad u dhibeyso. Balse haddaadan iska badinin, wax yar aad cuntid caadi waaye, laakiin haddaa cuntid oo isku aragtid in ay ku dhibeyso, iska jooji insha Allah biidnillaahi kariim. Dhammaanteena waxaa Allah subxaana wa tacaala inoo weydiinaya cafi iyo caafimaad, mar walbana nimcada ilaahay subxaana wa tacaala arladan noo soo dhigay aan ka faa'iideysano. Wax ka fiican ma jiro. Mar walbana Allah subxaana wa tacaala aan ku shukrino, sida uu noogu siyaadiyo mar walbo. Waad ku mahadsantihiin daawashada videogan. Haddii aa intaan nala soo gaarteen, jazaakallah khayr ayaan idin leeyahay. Inta aan video lamid ah ku kulmeenan, waxaa idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidaas iyo amaano Allah.